إيران قوة بين نقطي waxoogaa xagga fikirka iyo cilmi baarista ayay lacag ku bixisay halka carabku ayagu waxyaabaha raaxada ee lecture-ga ayna samaynin ayagu lacag ku bixinayeen bariga dhexe Israa'iil baa joogta Israa'iil waxa weeye dadka ugu cilmiga badan leh cilmi baaristana miisaaniyadooda 10% wax ka badan ayaa ay ku bixiyaan taas waxay keentay in ay xaggii tiknoolajiyada iyo wax soo saarkii ama beeraha noqdo xaggii tiknoolajiyada oo dhan ay ku horumarto carabtiina ay dib u dhacaan maadaama ayna aqligii ayna maal gelinaynin Iran waxa ka dhacay muxuu ahaa kacaan ama revolution ay wadaadda hogaaminayaan wadaadadu waxyaabo badan ku qaldanaadaan oo waxa weeye magaca diinta in xukun lagu qabsado wax horta wanaagsan maaha ummadda ilaahay xoriyad buu siiyey siday noloshooda u maamulayaan ilaahay xoriyad buu siiyey cidda ay dooranayaan iyo siday nidaamka ay ka raali noqonayaanna ilaahay wuxuu siiyey oo wuxuu yidhi wa amruhum shuuraa baynahum kelmadda xukun maaha nidaam maamul qur-aanku uma isticmaalo nidaam maamulo dowladeed kelmadda xukun waxaa loo isticmaalaa garsoor inaad laba qof aad kala saarto laakiin nidaamka marka la leeyahay talo iyo amuur la isku maamulayo iyo talo quraanku wuxuu isticmaalaa kelmadda la yiraahdo amri wa ufawidu amri ila Allah waati jirta yani taladaydii baan ilaahay aan u dhiibtay sidoo taladaada u maareeyay nimankaasi waxay sameeyeen in magacii diinta 8 nin intay isku yimaadaan ay nin doortaan aayatullah ninkaas magacii diinta uu ku xukumo qaladaadka uu sameeyay waan u soo noqon doonaa oo in xoriyadkii dadkii in muxuu ahaa xoriyadkii dadkii ilaahay siiyay nolosha sida u maareynayeen isagoo magaca diinta adeegsanaya oo wax walba xog ku qaato taawano imanayna waayo waxyaabaha ay carabta kaga duwanaayeen carabta waa dictator oo waa qoysas xukunka iska dhaxlaya laakiin Iran waxay kaga duwanayd wadaadada Iiraaniyiinta waxay kaga duwanaayeen waxay sameeyeen waxoogaa cilmigii iyo maskaxdii ummadda ayay maal geliyeen marka waxay samaysteen xooga saaray in xagga difaaca ay iska dhisaan maadaama ay labo mucaaradood ay ku leeyihiin mantiqada ah Sacuudiga oo sunnigii hogaaminaya oo propaganda fikra ku furaya isagoo masaajida uu dhisay si dhexmaraya oo Israa'iil oo Iran cadow ka dhigaya iyo Iran oo aanan ogolayn inay awood iyo Israa'iil oo aanan ogolayn inay awood aan iyada ahayn ka jirto gobolkii Israa'iil laba ujeeday lahayd ay leedahay dabcan labada ujeedo waxa weeye mid waa dhul oo waxay aaminsan yihiin Israa'iil taweyn oo ah u dhaxaysa muxuu ahaa labada webi Niil iyo Furaat ay aaminsan yihiin inuu dhulkaasi yahay dhulkii uu Ilaahay siiyay sidaa daraadeed si ay ujeedadaas u gaaraan ma ogola awood aan iyaga ahayn oo meeshii ka dhalata waa nin hore oo wasiira wuxuu yiri laba shabeel lagama ogolaan karo in bariga dhexe waayahay labada ujeedo iyadoo leh Iran maadaama ay ogeyd labada halisood Israa'iil oo dhul iyo awood doona iyo carabtan oo muxuu ahaa madhabtii islaamka inuu sunnigu uu meesha awood ku yeesho rabta marka sidaa daraadeed Iran waxay samaysay aqligii bay maal geliyeen waxay samaysteen difaacyo ay iyagu leeyihiin oo sawaariikh lugniyeer ay culimadood maadaama maskaxda dadkii ay toojiyeen waxba ka soo baxaya waxay samaysteen inay lugniyeer nabdoon laakiin ay u bedeli karaan gantaalo sawaariikh fiican waxa kaloo ay samaysteen oo aragti fog ahayd in diyaaradahani ayna cidina wadin qaabkii markii hore loo adeegsanayay qaab ka duwan oo adeegsadaan diyaaradaha iyagu ugu horeyn laakiin Mareykanka waa sameeyaa cid walba ay sameeysaa Turkiga waa sameeyaa Israa'iil way sameeysaa
European-kan way sameeyaan laakiin qaabka diyaaradaha loo adeegsan jiray waxay ahayd diyaaradaha drone-ka waxa loo adeegsan jiray kow in ay wax basaasaan indha-indhayn surveillance ama waxa Carabiga lagu yaqaano istilaac oo ay waxaana yiraahdaan eye in the sky indho samada ku dhegan in wax lagu basaaso ay wax eegto iyo in ay duqaymo geysato meelaha aan loogu talagalin diyaaradahan waaweyn iyo waxaas qaabkaas baa diyaaradaha drone-ka loo adeegsan jiray waana qaali bay ahaayeen oo iminka tan la yiraahdo MQ Reaper ee Mareykanka dee waa 16 milyan xabadii ma ku saxsan yihiin hadda marka inay saameystaan yacni waxyaabaha ay aqliga ay u maalgeliyeen ay teknolojiyadii uga hormareen ayaan ka wadaa diyaaradii markaa waxay bedeleen qaabkii diyaaradaha drone-ka loo isticmaalayay waxay iyagu sameeyeen diyaarad drone oo tii ka yar ka jaban oo qarashka ku kacay oo halkii ay xabadda Mareykanku ay 16 milyan tani ay tahay haday ugu badato 20,000 qaabkii loo adeegsanayna waxay ahayd in uu qof wado oo intay meel duqayso ay soo noqoto waxay noqotay diyaarado isqarxinaya suicide waa la programmeynaya halkan iyadoo kicin ayaa lagu programmeynaya bartilmaameedkii marka iyada oo maqiiqan ayay ku soo galaysa waxay noqotay mid saameyn leh oo qaabkii dagaalka adduunyadu uu socday wax ka bedeshay waxay noqotay inuu Ruushku ka iibsado waxay noqotay markuu Mareykankii uu yaabay xabadii diyaarada 20,000 uu gantaal 4 milyan oo Tomahawk uu ku soo rido waxay noqotay in uu qarashkii dagaalka uu Mareykanka iyo Israa'iil laftigeedu ku galayeen inuu kor u kaco inuu hubkii dhamaado ayay noqotay taas baa imika uu Mareykankii uu bilaabay inuu Iran naqshadii kaga daydo imika waxa la rabaa in la soo saaro diyaarad ku dhacday oo Iran ay leedahay oo Ukraine ku dhacday ay ciidamada Mareykanka dawladda Mareykanka la siiyay waxay noqotay in dib loo farsameeyo imika wala soo saaray xabad Lucas baa la yiraahdaa waxay noqotay in imika si badan oo number badan loo soo saaro marka waxay noqotay in Iran ay bedeshay qaabkii rule of the game qaabkii muxuu ahaa dagaalkii iyo xeerarkiisii bay bedeshay qaabkii daroonada loo isticmaalay ay bedeshay kadib ay noqotay in dawladihii horumaray ay kaga daydaan in sida Ruushka iyo Mareykanku ay dib imika iyadu soo saaraan taas horta horumarka ay gaadhay weeyaan ee aqliga ay tuujiyeen ee wadamadan Carabta ee maryaha weyn leh iyagoo aan aqliga ka shaqaysiinayn ay ku dhaameen dhinacaas waa dhinacii horumarka laakiin aasaas ahaan maamulka wixii ay ku aasaaseen baa qaldanaa oo in intoo diin la adeegsado dadka lagu sanduleeyo oo lagu xukumo oo qofkii isagoon xitaa dawladdii iyo nidaam oo cidi raali ka ahayn oon xitaa qualified dawladu ahayn kaliya inuu diinta yaqaano cimaamad xidho oo koox gaar ah ka tirsan yahay uu diintii ummadda ku qabsado marka maxay noqotay in xorriyaddii aasaasiga ahaa ee ummaddu ay meesha ka baxdo oo waxaanu Ilaahay jidaynin oo waxyaabo yaryar oo farac oonan quraankuna ka hadal oo Ilaahay xorriyadda dadka u sii daayay in laga dhigo wax diimeed oo Ilaahay yiri oo diintii dadka la nacsiyo marka muxuu noqday nidaamkani nidaam lagu dhisay dulmi xorriyadda dadka iyo dawladnimadii marka asaasku nidaam kasti oo lagu dhiso caburin nidaam kasti oo lagu dhiso dulmi iyo dadweynaha oo la caburiyo waxa ay noqotay inuu dumayo waxay marka qaarkood waxaad la yaabaysaa marka ay qabsadaan qolooyinkan magaca diinta islaamka sheegta markay qabsadaan waxay culayska saarayaan gabadhi waxay xiranayso waxay baranayso meeshay tagayso xilliga ay baxayso Afghanistan adiga arkay waxay wax ma baran karto ma bixi karto gebigeeduna waa inay istabaasho ay xirato waxaasna Ilaahay gabadh kuma amrin qofkii Iran waa adiga arkay iyagoo Farisiyiina oo dad xadaarad lahaa
oo dad soo jireen ah oo diintii garanaya waxay diintii santar uga dhigeen xukunkii waxay santar uga dhigeen khamaarka ay gabadhu xidhanayso oo mawduuc kale aan kaga hadli doonaa arrinka xijaabka waxaan ognahay inuuna qasab una ku ahay inuu ilaahay una faral kaga dhigin uu gabdhaha u xadeeyay waxay ay xidhanayaan taas waan u geli doonaa laakiin waxaan ka wadaa in dowladdii aasaaskeyga laga dhigo dowladda cadaadisa muxuu ahaa dumarkii taasaa keentay cadhaysi soo urursatay oo booliiskii dowladdu uu lahaa ay ka ag samaysmeen wax la yidhaahdo basiij la yidhaahdo oo niman wadaada ah oo aan cidna ka amar qaadan oo maxkamaddii iyagu ah oo dacwaddii iyagu ah hadda waxay dileen gabdho badan bay dileen oo ay ku dileen timaheegaa waxoogaa muuqda